ummaddii soomaaliyeeday qabyaaladii goormay dhammaataa qarni rubucii bay maraysaa intay ku dhex dhalatay baa aabbayo u noqday qaarna wakhti aan dheerayn awow bay gaadhi doonaan maalinba waa shaati cusub maalinba waa midab cusub maalinba waa magacaabano hoggaamiye ah oo muuqaal cusub wata marba waa magac qabiil oo dharla mar waa jabhadeed mar waa gobolaysi mar waa kooxaysi iyo xisbiye ururo weeye sii jiidoo soo jiido xisbigu waa qabiil ururkuna waa qabiil kooxduna waa qabiil gobolkuna waa qabiil qabiilkuna waa qabiil war dadkii baaba oo dalkii dun oo waa la bililiqaystay oo meel walbaynu bilqannahay oo midna inagama noola haddana waan sii jecellahay nin baa halku dhig wuxuu yidhi wax waraabo u eeg buu sawiray qabyaaladna waa ku sawiray nin isku duubayoo dhunkanayuu soo saaray wuxuu yidhi aabbaha iyo awowgay adaa dilay gurigaygii iyo goydkaygiina adaa gubay waddankiina adaa iga qaxiyey welina waa ku jeclahay halkii baynu maraynaa war baashayna dumisay oo ina qaxisay oo ina baabi'isay oo aakhariyo adduun bayna seejisay haddana aynu laab ku wadanno ciroolku kiiba ma aha caaqilku kiiba ma aha marka qaarkood culimmadu iyo wadaadku kiiba ma aha markay baasha qabiilka ha timaaddo baa waxaan idhaahdaa waxaan u malayn dadka ninka ugu yar falaash iyo biriis koolmii baa ugu jirto meelun baad maasadu ka qabataa waa baasha qabyaaladdu markay timaaddo maxaa caqligii safriya maxaa cilmi iyo diintii safriya dadku wada af macaana oo wada dhaqan xuma war ilaa goormaynu wadaynaa ikhwat alislaam waliimaan ilaa goormaan waan samaynaa 20 sano ka badan oo maalinba weji cusub leh oo qaxiyo wax dhinta mooyeen midho iyo quudan ba aan lahayn war ilaahay ha laga yaabo inta nairobi joogta baa ugu daran dadka bal makhaayadaha tag fadhi kudiradana tag xiisad qabiilun baa ka socota qaabka dooni u yeel magaca dooni u yeel haddaan dawlad yeelanno waa qabiil haddaan gobol yeelanno waa qabiil haddaan urur yeelanno waa qabiil bal idinku wakaase xataa wadaadkii hadla waxbaa qaldan la yidhaahdo waa shaabad qabiil qaranna waa ku duminay ummaddiina waa ku qaxinnay welina dabka waan sii shideena warnimayo ilaaha laga baqo war adduunkii baaba'ye ummaddii baaba'daye abshir bacadla allaha u naxariistee wuu asiibay baan isleeyahay markuu yidhi qaangaadh fidnowye ubadkayaan la qabatiin balda'da soo koraysuun baashaad ku ababilaysaan ka daaya lacalla 20 sano waxaan ka baqayaa inay nagu gaadho 40 sane reer bani israa'iil la yidhi 40 sanatan yatihuuna fi lard 40 sano ay wareersanaanayaan ilaa waayeelkii intii wax garanaysay ay dhammaatay laakiin daayartii baynu sii baraynaa dee cudurkii baynu tallaalaynaa oo ubadkii baynu ku abaabinaynaa warnimayo ilaaha laga baxsado baashan qabiilka ee kolba qaab loo dhigayo marba shaati loo xirayo ummadda walaalayaal laga daayo fariinta saddexaadaan raba inaan diro ummaddii muslimka ahayd intii hore marar badan diinun baa u caafimaad qabatay iyadiina waa lagu tuntay magac diineed baa dhiiggii bilaash loogu bannaystay magac diineed baa maalkii lagu bannaystay oo lagu boobay magac diineed baa cirdigii iyo sharaftii lagu bannaystay oo haweenkii iyo furuustii lagu xalaalaystay waxbuu dhaamaye tanna waa kaaga sii daran fitankii nabigu sheegay ee camyaa'a samaa uu ku magacaabay oo tudhibu lcuquuli uu yidhi baynu joognaa takfiir aan xuduud lahayn masaajidii baa nabadgeli weyday salaad baa lagu badbaadi waayey sujuuddii baa la isku dilay manaabirtii baa miino la isu dhigay dadkiiba masaajidii bay ka carareen meelo badan baan masaajid damaacayn badan la aadin oo lagu leeyahay haddaad aaddo meelahaasaa lagugu dili masaajidka agtiisaa la farfadhiyaa war maxaa masaajidda dadka looga cayrinayaa waa horay soomaalidu dhihi jireen baan isleeyahay haddee qayladu masaajidkay ka yeedhay qayladu masaajidkay ka yeedhay guryihiinna ku tukado masaajidda ka fogaadaan maraynaa war masaajidda ilaahay lagu badbaadi jiray war munaafiqiin baa salaad lagu dayn jiray nin baa nabiga intii la yidhi andilu yidhi lacallahu yusalli inuu tukadaa laga yaabaa haddana salaadda ku gaad bay maraysaa war ilaahay ha laga yaabo takfiir aan xad lahayn iyo fataawa maajina markii ahlulcilmiga iyo sultaanka seeftu jiray dad badan baa la xirxiri lahaa fatwadana laga mamnuuci lahaa oon ahal u ahayn gidaarada u fuul qowl kastoo shaada soo ururi adu waxaad uun qiil ii raadisaa diinta suu dooniba ha ugu qalloocnaadee dhiig iyo naf igu bannaanan karaan markii waxaa yimaado qofku wuxuu u baahanayaa culayska uu dareemayo siduu isaga qaado muslim baa dishay daa'irada takfiirka waa inuu waasiciyaa si uu si fiican ugu galgasho oo lugaha ugu kala fidiyo war ilaahay ha laga yaabo ka tukada waa gaal
كسجودنا وقال مسجدكنا وحلال إلا قرحيه من هذا إن لا دقنا ويبنانتهي وواد دينتي إله انتا كيالتان كوي حرم كنتي قالين منوينك كعوضة كرة كيبه الجهيمان با ودن كينا قلب بوحة تكفير كل بوي تكفيرنا وتكفير تدينه كي هورين نقينيوي تكفيرنا وتكفير وظيفي أو الغشاق عليه أو شقية وظيفة قدنا يو وعمدك هذا ينحيست مركي بقن كفتاوى هذا تكفير واي مركي معاملة يبانت يمسق على أراكتية وحسد ومرينتنا تقيي شيعوي ولله الله عبصه وردتك ديقو ده هلا بدبادي والمسلم كان مالكو ده هلا بدبادي والمسلم كان عرضي ده هلا بدبادي والمسلم كان محيدين كايستا كي بنان مريا لقرنوا واحد دليل لما يقان واحد لو دليل لما يقان ولله الله بقى نميه